Mas'uuliyiinta maamulka dowladda hoose iyo ka wasaaradda ciyaaraha ayaa si rasmi ah u soo gabagabeeyay koobka bisha Ramadaan u socday kooxaha heerka koowaad ee ka dhisan degmada Garaadaga. Kooxahaas oo dhammaan 6 kooxood isla markaasina ay isugu soo hareen labada kooxood ee ku kala ciyaarayay wasaaradda warfaafinta iyo koox ku ciyaaraysay magaca shirkadda Al Shukri Construction Company, kaasina ay guusha ku raacday kooxda Al Shukri Construction Company. Munaasabaddan oo la guddoonsiiyay kooxda Al Shukri koobka ayaa sidoo kale waxaa la guddoonsiiyay kooxda ka socotay wasaaradda warfaafinta Diris Dhammaystiran. Halkaasi ka hadlay mas'uuliyiinta wasaaradda ciyaaraha, mas'uuliyiinta ka socday maamulka dowladda hoose degmada wadaantu inoo soo dhamaado oo aynu maanta xafladiisa halkan ugu fadhino. koobkan markaa waxa soo qaban qaabiyay qolada dowladda hoose degmada Garaadaga ayaa soo qaban qaabisay, waxaana loogu talagalay dhalinyarada isboortiga ee degmada Garaadaga ayaa loogu talagalay. wuxuu ahaa koobkii Ramadaanta bishii Ramadaan oo dhan buu noo soo socday, falilaahi alxamdu wal minna. si nabadgelyo wanaagsan buu noogu soo dhamaaday. haddana waxaanu u joognaa inaanu labadii kooxood ee finalka isugu soo hadhay kooxdii koobka qaaday aanu guddoonsiino koobka iyo biladaha. raggii ugu goolo dhalinta badnaa, raggii ugu ciyaarta wanaagsanaa, kuwii ugu akhlaaqda wanaagsanaa, dhammaantood inaanu biladahan halkan yaalla iyo koobka halkan yaalla iyo direysyadan inaanu guddoonsiino maanta. waxaan aad iyo aad marka hore ugu mahad celinaynaa xogayaha dowladda hoose iyo golaha deegaanka ee degmada Garadag isxilqaanka ay maanta isxilqaameen inay dhalinyaradii degmada Garadag koob wareega ay u qabtaan bisha Ramadaan. aad iyo aad bay ugu mahadsan yihiin, waana ogaan doonaa. dhalinyaradana waxaanu leenahay dee la shaqeeya dowladda hoose maadaama ay madaxdeennii ay yihiin. maantana ina xusuusteen oo maaragtay koobka bishii Ramadaan inoo soo socday ay inoo qabteen. waxaan rajaynayaa inaanu kii u dambeeyay aanu noqon, kii horeeyana noqon, oo halkaa ka sii socon doono. Garadag Modern Stadium waxaanu halkan maanta u joognaa xafladii koobkii Ramadaanta ee soo socday. muddo badan buu soo socday koobkaasi. maantana waxaanu halkan u joognaa inaanu labadii kooxood ee ugu dambeeyay finalka isla yimid ee kala badiyay inaanu maanta halkan ku guddoonsiino koox walba direyskeedii. kooxdii balse koobka qaaday inaanu koobka guddoonsiino sida guddoomiyaha sports ka warramay. sportskii ugu wanaagsanaa, ninkii ugu gool dhalinta badnaa, nidaamkii processkii sportsku mari jiray sida guddoomiyuhu ka soo warramay. xafladaasay daaran tahay. annaguna ka gol ahaan laba waajibo wana saaran yihiin markaanu dhalinyarada nahay. kii dhalinyaranimo oo aanu mar walba dhalinyarada heegan u nahay oo waxa weeye maadaama aanu dhalinyarta ka mid nahay, iyo kii mas'uuliyaddii aanu deegaanka iyo dadkaba u haynay. annagoo taa ka duulayna mar walba waxaa naga go'an inaanu dhalinyarada la shaqayno sportska. aanu aad iyo aad ula shaqayno annagoo labada waajibana saaran yihiin. koobkan maanta Ramadaantan loo qabtayna Ramadaantii ugu horreysay aanu mas'uuliyadda ayna saarnayd buu ahaa. mana noqon doono koobkii ugu dambeeyay. wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillahi sallallahu alayhi wasallam. alxamdulillahi rabbil caalamiin. ugu horreyn ilaahay baa mahad leh. allah inugu soo gabagabeeyay koobkii Ramadaanta inoo socday ee u socday 8 team ee seereeda ah soo dhamaaday maanta ku soo dhamaaday si farxad leh aan caadifad lahayn. labadii kooxood ee koobka qaaday oo isu hambalyeeyay kala qaaday oo isu hambalyeeyay. halkan waxaan maanta aan isugu nimi waxa weeyaan inaanu horta ku abaalmarino ku bixino kooxdii koobka qaaday aanu abaalmarinahay ay mudatay aynu siino. biladihii iyo darajooyinkii ay kala gaareen intii koobkaasi socday, dhalinyaradii mas'uulinimada muujisay, dhalinyarada xirfadda heerka caalamiga la timi. waxaan doonaynaa maanta bal inaanu halkan dhiirigelinta markhaati looga ahaado, halkaana ay ka sii socoto insha Allah biidnillaahi kariim. sida muuqataba annaga wax qabadkayga horta waxa number 1 waxaanu siinayna waxa weeye waa dhalinyarada iyo sportiga. iyaguna inay nagu garab siiyaan oo ay arkaan de inaan u soo jeedno aanan ka sii jeedin. waxaan horumarinaa insha Allah garoomadooda, xirfadahooda. waa taa laga soo warramay. waxaan joognaa garoonkii Garadag Modern Stadium oo lagu qabtay koobkii Ramadaanta. waxaanu guddoonsiinaynaa labadii kooxood ee kala qaaday koobka. dhammaan horta waxaan u hambalyaynayaa 8 kooxood ee seereeda halkan ka ciyaaray. waxaan leeyahay koox waliba way guuleysatay, koox la si fiican oo sharaf leh soo ciyaartay. aad iyo aad buu mahadsantihiin. markasta sida raggii ugu horeeyay sheegay waxa naga go'an inaan dhalinyarada horumarino.
qaranna ma hormaro aan dhalinyaradiisa yaani hormarin aqoon-yahankiisa iyo dhalinyaradiisa iyo lafdhabarka dadku waa dhalinyarada aynu ku tiirsannahay marka mar walba idin barbar taagannahay Cabdi Salaad Jaamac Telefishinka Sahan Garadaga